وزيرك مدحتويدا وزير دولها arrimaha gudaha dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan caawa halkan ku kulantay dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh goor gaaban hadalkeedna gaaban bishii barakaysnayd ee ramadaan baan ku jiraa habeenadii ugu dambeeyay ee ugu khayrka badnaa baan ku jiraa dhammaanteenba ilaahay kuwii uu mataqaanaa naarta kaga horeeyo jannadana albaabadeeda ugu furo ilaahay naga yeelo taasi waa hal ducaa waan hambalyeeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda wiilka uu noo magacaabay ee dhalinyarada ah ee uu ku soo daray bahda ciyaaraha ama la taliyaha ee madaxweynaha ee ciyaaraha uu ka dhigay waanu soo dhaweynaynaa waxaad arkaysaan ahmiyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay leedahay madaxweynuhu si fiican buu u arkayaa waxa ay leedahay laba la taliye oo madaxweynaha kala talisa midna dhinaca dhalinyarada midna dhinaca ciyaaraha oo imika ku soo kordhiyey aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa xubin muhiim ah kaalin muhiimana ka qaadan doonta wasaaraddan dhalinyarada iyo ciyaaraha dal hore u socdaynu nahay marba waxba inoo qabsoomaya sidii uu haddeer u sheegayay wiilkani xukuumadda axmed maxamed maxamuud siiraayo waxay go'aansatay in ay hagaajiso garoomadii lixdii gobol ee ugu waaweyn ay lahaayeen marka u horeysa gobollada kalena waa lagu socdaa lagama tegin laakiin waa lagu socdaa marka laga soo bilaabo awdal oo boorama ah gabiiley oo iyadu ismaamushay dawladduna wixii ay ku darisay ay ku dartay hargeysa barbara burco cerigaabo laascaanood intaba roogii cagaaraa in garoomadii la dhigo ayay xukuumaddu axmed maxamed maxamuud siiraayo ay go'aansatay runtii kharashka ku baxayaay waa kharash aad u weyn waa wax loogu mahadnaqo taasi waxay muujinaysaa dadaalka loogu jiro in kor loo qaado ciyaaraha dalkeenna in kor loo qaado wacyiga siyaasiga ee dhalinyarada waqtiga ay nagu gaaban waan soo dhaweynayaa la taliyaha loo magacaabay ciyaaraha garabka yagaa tahay waad nala shaqayn waanu kula shaqaynaynaa tale iyo tusaalaba waynu kala qaadan doonaa aad iyo aad baan madaxweynahana ugu hambalyeynayaa hadalka badin maayo waxaan ku soo koobayaa midnimadeenna iyo dawladnimadeenna ilaahay noo adkeeyo aafaadka hareeraheenna socdana ilaahay haynaga badbaadiyo dariiqa aynu ku taagannahayna insha allahu tacaala ee aynu raadinayno in aynu adduunka xubin ka mida noqonno oo aynu aqoonsigeenna helno waynu gaadhaynaaye ilaahay haynoo sahlo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزير عبد الرزاق وابرن وبلاد ومهتسين هاي رياضة قيمها بدن